السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سودو هذا غير فيسبوك iyo reer YouTube maanta waxaan u baxayaa waxa la dhahaa tuurka waxa waa in hawo la soo qaato oo cabaar la soo lugeeyo oo laga dhaxbaxa dadka iyo bulshada iyo suuqa laga dhaxbaxa ma garanaysaa isla markaan hawo la soo qaato u jeedaan dhulkan duur waaye waana qabow waa baraf wax soo jeedaan waxaan wataa dhar aad u culus aan wataa halkaan ayaan ku lugeynayaa marka geedahan dhexdooda waa duur waxaan rajaynayaa meeshan waa iska nabad waa biis wax laga baqa ma yaalaan asxaabay insha Allah intaan socono haddii lacala baraf waa dhulkood aragtaan haddii lacala waan qabow badan jiro okay lugta ii baxda oo aan kufo yaan la igu qoslin okay waxaan isku dayaa inaan tartiib socon karo si aan u qofin asxaabay horta inta badan Facebooka iyo bartayda YouTube-ka waxaan kaga hadlaa horumarka in guul la gaaro in nolosha laga guul gaaro dadka ay isku tashtaan wax cilmi aan barano xirfado aan barano adduunkan tiknoolajiyada noqday aan la qabsano aan wax ka barano haddii aad iska fadhido halka aad ay galaad u tahay saad arkaysaan waxa laga yaabaa in lugta ii baxdo laakiin tartiib ayaan soconayaa marka waxaan rabaa marka waxyaalahan ka hadla waxa adduunka horumare inaan la qabsano aanan ka harin maxaa yeelay inta aad nooshahay ee qudha ay kugu jirto waa inaad tahay qof wax ku ool leh wax soo saar leh dhaqdhaqaaq leh adduunka la socdo inaad noqotid waa muhiim laakiin haddii aad meel iska fadhidid adduunka wuu soconayaa wax kasta way isbedelayaan waa lagaa tegayaa waxaa laga yaabaa beri inaad soo baraarugto adigoo goor aad wax gacanta ku haysa aysan jirin inaad soo baraarugtaa laga yaabaa marka waxyaalaha badanaa aan bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigeliyo waxyaalihii aan soo bartay ama aan cilmi ahaan u soo bartay ama aan practical u sameeyay aniga aan tijaabiyay ayaan idinla wadaagaa inta badan run ahaantiina waxaan jeclahay waxaanay aan arkay noloshan adduunkan dunida horumartay inaan ka faa'iideysano aniga dabcan baaritaano badan aan sameeyaa ama research aan soo sameeyaa buugagaan soo akhriyaa waxaan ku xirana waxaan leeyahay coach ama professional ah wax badan aan ku xiranahay ee aan ogahay marka waxyaalahaas anigoo og baan ogahay adduunka meesha u socdo marka malihi adiga kaama cilmi badni laakiin waxa ii muuqdo inaan ka faa'iideysano ayaan insha Allah idinku baraarujiyaa bulshada Soomaaliyeed aan la jeclahay adduunka horumaray iyo dadka maanta maxay ahaday hogaamiye tiknoolajiyada iyo cilmiga sayniska waxyaalaha ay ma garanaysaa aan ka baran karno inaan barano oo aan ka faa'iideysano waa muhiim waxyaalaha marka aan xooga saaro waxa weeyaan saad ogtihiin badanaa waxaan ka hadlaa shanta tiir ee nolosha in la dhiso sidii waxyaalahan kale oo dhan ay noogu hagaagaan shanta tiir ee nolosha markaan ka hadlo dad badan waxay dhahaan sida ma aha waxa laga yaabaa inay si kale u fasiraan ama si kale u qaataan laakiin ujeedada waxay tahay qofka markuu uu dhiso maskaxiyan ahaan uu dhismo maskaxda uu ka dhisan yahay cilmiga uu ka dhismo wax soo saarka iyo hal abuurka iyo creative-ka iyo innovation-ka qofka uu ka dhismo waxbuu bedeli karaa garanaysaa dhalinyaradeen marka waxay u baahan yihiin in laga dhiso si ay innovation ula soo baxaan wax soo saar u yeeshaan in laga dhisana dadka waaweyn ee ka horeeyay iyaga inay kaga daysadaan practical wixii ay soo qabteen ay la wadaagaan ay ku dhiirgeliyaan ayaa loo baahan yahay garanaysaa waxaan rabaa marka maskaxda markaan ka hadlayno ama in maskaxda la dhiso in maxay ahayd badanaa saad aragtay waxaan ka hadlaa emotionkeena uu noqdo mid maxay ahayd aan dejino oo dad aan emotion aan ahayn oo dad xakameyn kara emotionkooda inaan noqono ayaan ka hadlaa waxaan ka hadlaa inaan physically ahaan dhisanahay hadda maanta duurkaasaan socdaa waa lugeynayaa waa maalin axad waa maalin nasasho dadka guryaha joogaan gaariyaan raaci karaa qaadan karaa maxaan u lugeynayaa waxaan rabaa inaan hawo qaato caafimaadkayga ka shaqeeyo socdo isbedel la yimaado maskaxdayda wax cusub ku soo biiriyo hadda meeshan waxaa idin keeni doonaa waqti ay samar tahay qabowga u dhammaado doog ay tahay baan imaadaa وصان أقول له يا مركي قبوته برف سدا إتها وأقول له يا معناه وحس وحن أوصل منا وحويان وحنوجه هاي physical كيجي عافمات كيجي
kaalinta ay ka qaadan karta markaan sidaa sameeyo ee aan socdo ee aan maxay ahayd wax soo kordhiyo creative aan la imaado halka duurka intaan imaado aan kaliya iska fikiro iraahdo nolosha waa maxay iga baahan yahay garanaysaa macnaha qof walbana oo caqli leh ee wax bartay ee mas'uul ah oo waxyaalo ku sameyn lahaa sidoo kale waxa muhiim qofka inuu dhiso waxaan ka hadlaa financially ahaan inuu dhismo dhaqaale ahaan qofka inuu dhisanto adduunka la socoddo xagaba dhaqaale ka sameyn karta business maxaad ku bilaabi kartaa maxaa hal abuur la iman kartaa creative noocaad la iman kartaa inaad hal abuur la timaado garanaysaa aad wax soo saar noqotid qof wax soo saar noqotid emotionkaada inaad waxyaalahan oo dhan markaan sameynayno oo daily aan u sameynayno ujeedadii hadafkaan leenahay maxaa waaye ujeedadii hadafkaan leenahay qof walba wuxuu leeyahay hadaf ama uu rabaa ama uu jecel yahay inuu gaaro adduunka intuu ku nool yahay waxa la yiraahdo afarta waaweyn ee nolosha ama afarta sacaado ama sacaadada nolosha lagu gaaro wada aad cariir oo maraayo baraf ah maxay waxa la yiraahdaa afarta nolosha sacaadada nolosha ama nolosha sacaadada leh waxa weeyaan midka ugu horeysa waxa la yiraahdaa qofka inuu helo health caafimaad inuu qofka gaaro caafimaad inaad heshan iskama imaanayo sida maanta aniga u socdo duurkana ugu socdo waliba wadan qurba aniga joogan laga yaabo inay dad cunsuriyiin ah iga hor imaadaan oo cadaan ah oo dhahanaagta xijaabka qabto madaxa xiran inay dhahaan laakiin haddana waxaas dhan ma aaminsan positive aan aaminsanahay waxaan aaminsanahay wax kasta aragtidaada isaad adigu aragta ay ku noqonayaan hadda wadadii waan ka dhumay waxaan rajaynayaa inaan wadadii ku soo laabto laba wada kala baxday marka qofka inuu ka shaqeeyo waxaan dhahnay maxay ahaday inuu ka shaqeeyo caafimaadkiisa waa muhiim number 1 waa waxyaalaha sacaadada lagu gaaro caafimaadkaada inaad ka shaqeysid number 2 inaad ka shaqeysid farxadaada happiness healthiest and happiness number 3 waxa laga rabaa inaad ka shaqeysid ama aad gaartid waxa la yiraahdo wealth qaninimada inaad qani ahayd qaninimada lacag ma aha laakiin waa kobaca maskaxda aqliga adiga oo dhiso shantii tiir aan soo sheegnay ayaa la yiraahdaa wealthness soo qof walba adduunka nool wuxuu raadinayaa inuu gaaro wealthness ama inuu hodantinimo gaaro intuu nool yahay waa qodobka saddexaad sidoo kale qof kasta adduunka ku nool waxa uu rabaa ama uu raadinayaa inuu gaaro ama uu helo love waxa la dhahaa ama jaceelka iskama imaado ama cid ku jecel hadaad heshitid iskama imaado haddii uu ku soo galana iskama haysan kartid ilaa aad ka shaqaysid haddii aad aragtaan dadkeena badanaa waxaad arkaysaa qoysaska inay kala tagaan hooyada aabaha isfuraan 2 carruur 3 carruur iska dhalaan qaar 5 carruur iska dhala kala tagay maxaa keenaya waxaa keenaya markay isguursadeen ma aysan kama aysan shaqeyn jaceelkooda nolosha oo dhan mustaqbalka wada qaadan lahaayeen kama shaqeyn kali waxay ka shaqeeyeen okay markii ugu horeysay chemistry-ga soo wada jiitay attraction guurka ama dareenkii ahaa in qof kale uu soo jiito uu jeclaado kadibna marka ay cabaar isla jooga carruurtii maad sheekada way dhamaanaysaa soo hay soo sheekada markay imaato maxaa dhacay gobol bint nin ay wata iga hormaad ayga igu soo carar ma garanaysaa kaamiradan ku qabtaan diida aniga xayawaan waa marka waxa dhacayso in ay sameeyaan ama dhacdo jaceelka dhamaad isla markaana marka dagaal bilowdo ama la isnaco ma la dhisin lagama shaqeyn sababtoo jaceelka wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo qofka jeclaan lahayd iyo maxay ahayd xaduudo aad leedihiin jira labada qof oo isjecel ama nolosha wadaagayso ay dhigtaan ama in ay maxay ahayd wixii soo kordhay isla ogaadaan xaaladda soo kordhay qofka hadduu xanuunsado hadduu isbedel imaado haddii qofkii wax ku dhaca wixii oo lagu ogaa wax ka duwan ku soo dhacday in jaceelkii ma garanaysaa la kobciyo waa idan waa in laga shaqeeyo baahan tahay soo qofka hadduu haysto afarta wealth ama afarta sacaado ee ugu horeyso maxay caafimaadka farxadda wealthness oo ah qaninimada iyo love afarta qofka hadduu haysto sacaadada nolosha waa afarta qof walba uu raadiyo laakiin sidii lagu helo way adag tahay in laga shaqeeyo u baahan tahay waqti badan in la geliyo u baahan tahay in afarta la helana waxay u baahan tahay 5 tiir in la dhiso oo ugu horeyso maskaxda in la dhiso intellectually spiritually physically emotionally and financially intaas qofka in si joogto uga shaqeeyo ayuu ku gaari karaa ama qaybta labaad ee ah
أفرتا سعادة فرحة نولش ككوبان تاي أصحابي إنا أنت كشقينا يا إنه بالنا دلني رضا جارهان وليبا دتكوا وين وقت قد هراء وسوقاتين لكن ما أنت دلني رضا إنه حيوب بالنا تاي إن لجرب استعجوا إن لدير الجلية إن لا تصو طريقة أمر الهاين أنت أدونك يكونوا لين بس أدونك وحلوه كان لا سبحانه وتعالى وكوك إن أدو شقيستي آخرة إن أدو شقيستي أدونك أنت تكونوا شهنا تكونوا لهتي نورال وناكسن في عن قروح بدن تاصل إلى هذا سعادة نولشة أو أفرتا تير مركا intaasna iskama timaado haddii aad tiraahdo waan cadaysanaya waan shanlaysanaya waan joogaya gurigan joogaya waan cunaya waan cabaya maalin unbay horta mas-uuliyaddu keligaa kugu soo noqonaysaa maalin unbay noqonaysaa inaad adiga fadhiga iska qaadid tuurkaygii ama safarkaygii yaraasaaka aan duurka usoo aadan haga soo qaadanayo aan kasoo shaqaynayo caafimaadkayga intaas ayaa idinkula wadaagay hadda kaamirada waan xirayaa waxaan idin leeyahay waxaa inoo balan ah inaan dhisno ama aan kobcino أفرتا سعادة نرش الدنيا أقرب له جاري كرو سيدو كله سي أن أفرتا أكب عنه أو أمرنا شنطة تير أو يجوهر spiritual سكو حركة إلهي سبحانه وتعالى أجود إله بقى إسكاله هدي إله ترى أسارتي هذه جو حلقة هربا كل دقائقنا سميس أدداش حركة في البركة على جهربا صص مهن أدود ما سنتهين ما أنت أيدين وناك سنة تقع معها أي قبوبين ما أنت وحواي جرادرك أما محي هذه عملة وماينس 5 مريسا وأنا قبو هذا حوجة أروح باجر تصدر كيسان لكن مرة وحنا بلا منا سمركي يدوقي عقاركي سلامات.